بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa rabbi hadduu qadaro barnaamijkeennii qisaska ahaa. waxaan barnaamijkanagi ku bilaabi doonaa qisadii dheereed. qisadan waxay dhex martay xajaaj bin yuusuf athaqafi oo aad garanaysaan amiir ka ahaa dhulka ciraaq dowladdii amawiyiinta xilligeeda, iyo wiil yar oo ka dhashay bani haashim. xajaaj waxaa abtiyaal u ahaa reer bani umaya oo mucaawiye uu ka dhashay. wiilkan yarna wuxuu istir ahaan ka soo jeeday reer bani haashim oo cali bin abi aalib uu ka dhashay, dagaalna uu ka dhexeeyey labada qolo. qisadu waxay ku bilaabanaysaa xajaaj bin yuusuf athaqafi. xajaaj bin yuusuf athaqafi ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu aaday inuu soo ugaarsado. waxa u baxay ugaarsi. xajaaj bin yuusuf athaqafi waxaan nidhi waxa uu baxay ugaarsi si uu u soo ugaarsado ugaar. ninkii xajaaj ahaa markii uu bannaankii magaaladii ka tegey buu wuxuu arkay wiil yar oo gacanta ku haya 9 ey xarga ay ku xiran yihiin. 9 ey xarga ay ku xiran yihiin ayuu gacanta ku hayay wiilkii yaraa. xajaaj wuxuu soo dul istaagay wiilkii yaraa 10 jirka ahaa eeyaha xargahooda gacanta ku hayay wuu soo dul istaagay. su'aal buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi, wiil yahow maxaad samaynaysaa? wiilkii yaraa intuu kor u eegay buu wuxuu yidhi, waxaad ii sidaa war aanan ku farxin. waxaad igu eegtay indha dadka lagu liido. waxaad igula hadashay hadal isla weyni ku jirto. hadalkaagu ruux isla weyn ayuu u eg yahay, caqligaagana caqli dameer ayuu u eg yahay.